injiilka sida Matayos u qoray cutubka 26aad waxaa dhacay goortii Ciise hadalladan oo dhan dhameeyey inuu xertiisii ku yidhi waxaad ogtihiin 2 maalmood dabadeed inay tahay ciiddii kormaridda oo wiilka aadanaha waxaa loo gacan gelinayaa in isku tallaabta lagu qodbo markaasaa wadaadadii sare iyo waayeeladii dadka waxay isku urursadeen barxadda wadaadkii sare ee Kayfas la odhan jiray oo waxay ka wada hadleen si ay Ciise khiyaano ugu qabtaan oo ay u dilaan laakiin waxay yidhaahdeen yaanay noqon wakhtiga ciidda si aan rabsho dadka uga dhexdhicin Ciise goortuu Baytaniya joogay oo ku jiray guriga Simoon kii baraska qabi jiray waxaa u timid naag haysa weel alabastar ah oo cadar qaali ah ku jiro oo waxay ku shubtay madaxiisa intuu cuntada u fadhiyey laakiin xertu goortay arkeen way cadhoodeen oo waxay yidhaahdeen khasaaradanu maxay ku noqotay waayo kan waxaa lagu iibin kari lahaa wax badan oo masaakiinta la siin lahaa Ciise goortuu gartay ayuu ku yidhi maxaad naagta u dhibaysaan shuqul wanaagsan ayay igu samaysay waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan aniguse mar walba idinlama joogo waxay cadarkan jidhkayga ugu shubtay inay aasniintayda ii diyaar garayso runtii waxaan idinku leeyahay dunida oo dhan meel alla meeshii injiilka lagu wacdiyo waxay samaysay ayaa xasuusteeda lagaga hadli doonaa markaas mid 12 ka mid ahaa oo Yudas Iskariot la odhan jiray ayaa u tegey wadaadada sare oo ku yidhi maxaad doonaysaan inaad isiisaan anna waan idiin soo gacan gelin doonaaye oo waxay bixiyeen 30 googo oo lacag ah markaas dabadeed wuxuu doonayay goor wanaagsan oo uu u soo gacan geliyo maalintii ugu horreysay ee ciiddii kibistii aan khamiirka lahayn xertii ayaa Ciise u timid oo waxay ku yidhaahdeen xaggee baad doonaysaa inaannu kuu diyaar garayno inaad cuntid cashada ciidda kormaridda wuxuu ku yidhi magaalada gala oo hebel u taga oo waxaad ku tidhaahdaan macallinkii wuxuu leeyahay wakhtigaygii waa dhow yahay gurigaaga ayaan cashada ciidda kormaridda kula samaysanayaa xertayda xertii waa samaysay sida Ciise ku amray oo cashada ciidda kormariddii ayay diyaar gareeyeen goortii maqribkii la gaadhay 12 xerta ahaa ayuu cunto ula fadhiistay oo intay wax cunayeen ayuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay midkiin ayaa i gacan gelin doona markaasay aad iyo aad u calool xumaadeen oo waxay bilaabeen in mid kasta ku yidhaahdo ma anigaba sayidow wuu jawaabay oo wuxuu ku yidhi kii saxanka gacanta ila gasha kaasaa i gacan gelin doona wiilka aadanuhu waa baxayaa siday u qoran tahay laakiin hoog waxaa leh ninkaas wiilka aadanaha gacan gelinaya waxa ninkaas u wanaagsanaan lahayd inaanu dhalan Yudas oo ah kii gacan geliyey ayaa u jawaabay oo ku yidhi maanigaba sayidow wuxuu ku yidhi waa tiri oo intay wax cunayeen Ciise ayaa kibis qaaday oo barakadeeyey wuuna jijabiyey oo xertiisiyey oo yidhi qaata oo cuna tanu waa jidhkaygii kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga oo wuxuu ku yidhi kulligiin ka cabba waayo kanu waa dhiiggayga axdiga cusub kan kuwa badan loo daadshay dembidhaafkooda aawadiis laakiin waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed anigu kama cabbi doono midhahan geedka canabka ah ilaa maalinta
aan iyadoo cusub idinkula cabbayo boqortooyada aabbahay dhexdeeda. goortay gabay ammaana ku gabyeen waxay u baxeen buur saytuun. markaasaa ciise wuxuu ku yidhi, caawa kulligiin waa iga xumaan doontaan, waayo waxaa qoran, adhijidhkaan dili doonaa oo idaha foofku ahu waa kala firdhi doonaan. laakiin markii kuwii dhintay layga sare kiciyo dabadeed ayaan galiili hortiin tegi doonaa. laakiin butros ayaa u jawaabay oo ku yidhi, hadday kulli kaa xumaadaan anigu weligay kaa xumaan maayo. ciise wuxuu ku yidhi, runtii waxaan kugu leeyahay caawa qudhayda intaan diiqu ciin 3 kol ayaad i dafiri doontaa. butros wuxuu ku yidhi, inkastoo aan leeyahay inaan kula dhinto, kollayba ku dafiri maayo. xertii oo dhammuna sidaasay wada yidhaahdeen. markaasaa ciise la yimid iyaga meel getsemane la odhan jiray, oo wuxuu xertii ku yidhi, halkan fadhiya intii aan halkaas tegayo oo ku soo tukanayo. oo wuxuu watay butros iyo 2 wiil ee Sebedi, oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo. markaasuu ku yidhi, naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho, halkan jooga oo ila soo jeeda. waxoogaa ayuu hore u socday oo wejigiisu u dhacay oo tukaday isagoo leh, aabbow hadday suurtoodo koobkanu hay dhaafo, hase ahaatee yaanay noqon sidaan doonayo, laakiin sidaad doonaysid ha noqoto. xertii ayuu u yimid oo wuxuu arkay iyagoo hurda. oo wuxuu butros ku yidhi, waa sidee, miyaad kari weydeen inaad saacad keliya ila soo jeedaan? soo jeeda oo tukada inaydnaan jirrabaadda gelin. ruuxu waa diyaar, laakiin jidhku waa itaal daran yahay. haddana mar labaad ayuu tugay oo tukaday isagoo leh, aabbow haddii aanay suurtoobin in koobkani dhaafo anigoo cabba maahee, sidaad doonaysid ha noqoto. mar kale ayuu u yimid oo arkay iyagoo hurda, waayo indhahoodu lulmay la cuslaadeen. wuu iska daayey oo haddana ka tegey, oo mar 3 ayuu tukaday, isagoo haddana hadalkii oo kale ku hadlaya. markaasuu xertii u yimid oo ku yidhi, hadda seexda oo nasta, bal eega saacaddii waa dhowdahay, oo wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacan gelinayaa. kaca aan tagnee, eega kii i gacan gelin lahaa waa soo dhow yahay. oo intuu weli hadlayey ayaa yuudas oo 12 ka mid ahaa yimid, isaga iyo dad aad u badan oo seefo iyo ulosita. waxay ka yimaadeen wadaadada sare iyo waayeelada dadka. kii gacan geliyey ayaa calaamo kula ballamay oo ku yidhi, mid alla midkaan dhunkado waa isagii ee qabta. kolkiiba ciise buu u yimid oo ku yidhi, nabad macallimow, wuuna dhunkaday. kolkaasaa ciise ku yidhi, saaxiibow maxaad u timi? markaasay yimaadeen oo gacmahooda ayay ciise saareen oo qabteen. oo baleeg mid ka mida kuwii ciise la jiray ayaa gacanta fidiyey oo seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii, oo dheg buu ka gooyey. markaasaa ciise ku yidhi, seeftaada meesheedii ku celi, waayo kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan. ma waxaad u malaynaysaa inaanan aabbahay baryi karin oo uusan haddeer ii soo diri karin malaa'igo 12 guuto ka badan? haddaba sidee buu u noqon doonaa qorniinku kan leh, waa in sidaasu noqotaa. saacaddaas qudheeda ayaa ciise dadkii badnaa ku yidhi, ma waxaad iila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad i qabataan sidaan tuugahay? maalin walba macbudka ayaan fadhihi jiray oo wax ku bari jiray, imana aydnaan qabsan. laakiin waxaan oo dhan ayaa noqday in qorniinka nebiyadu rumoobo. markaasaa xertii oo dhammu ka wada tageen oo carareen.
kuwii ciise qabtay waxay u geeyeen kayfas oo ahaa wadaadkii sare ilaa meeshii culimmada iyo waayeelladu ay ku urursanaayeen laakiin butros baa meel fog ka soo daba socday ilaa barxadda wadaadkii sare wuuna galay oo askartii la fadhiistay inuu ugu dambaysta arko wadaadadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati beena oo ciise ka geesa si ay u dilaan waase heli waayeen inkastoo markhaatiyaal badan oo beenahu yimaadeen laakiinse dabadeed waxaa yimid laba oo waxay yidhaahdeen kan wuxuu yidhi waxaan karayaa inaan macbudka ilaah dudumiyo oo 3 maalmood ku dhiso markaasaa wadaadkii sare istaagay oo ku yidhi miyaanad waxba ka jawaabayn kuwani waxay kugu marag furayaan waa maxay laakiin ciise ayaa iska aamusay kolkaasaa wadaadkii sare wuxuu yidhi ilaaha nool ayaan kugu dhaarinayaae noo sheeg inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah iyo in kale ciise ayaa ku yidhi waa tidhi hase ahaatee waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga ilaah oo ku imanaya daruuraha cirka markaasaa wadaadkii sare dharkiisa jeexjeexay isagoo leh wuu caytamay maxaynu markhaatiyaal weli ugu baahan nahay bal eega haddeer waad maqasheen caytanka maxay idinla tahay way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen wuxuu istaahilaa dhimasho markaasay wejiga ka candhuufeen oo garaaceen qaarna waa dharbaaxeen oo waxay ku yidhaahdeen noo sheeg masiixow yuu yahay kan kugu dhuftay butros wuxuu fadhiyey barxadda dibadda ah markaasaa gabadh u timi oo waxay ku tidhi adiguna waxaad la jirtay ciisihii reer galiili laakiin dhammaantood ayuu ku hor dafiray oo wuxuu ku yidhi anigu garan maayo waxaad leedahay goortuu iridda tegey mid kale ayaa aragtay oo waxay kuwii halkaas joogay ku tidhi kanu wuxuu la jiray ciisihii reer naasaret haddana dhaar ayuu ku dafiray oo yidhi anigu garan maayo ninka waxoogaa yar dabadeed kuwii ag taagnaa ayaa u yimi oo butros ku yidhi run weeye adiguna midkood baa tahay waayo hadalkaaga ayaa ku muujinaya markaasuu bilaabay inuu caytamo oo ku dhaarto inaanu ninka garanayn kolkiibana diiqii baaciyey markaasaa butros wuxuu xasuustay hadalkii ciise ku hadlay diiqu intaanu ciin 3 goor ayaad i difiri doontaa markaasuu baxay oo aad u ooyey